gorma lananay lugoyadi nadaysay gorma lulanay gorma libanay munaasabadan oo maalmihii la soo dhaafay qabanqaabadooda ka socotay magaalada muqdisho caasimadda Soomaaliya laguna dabaaldegayay 26ka Juun oo ku beegan marka calanka Soomaaliya laga taagay geyiga Soomaaliyeed dhinaca kale ee xornimada qaateen gobolada waqooyi galbeed ee waddanka Soomaaliya ayaa xalay lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay madax iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya madaxda ka soo qayb galay waxa kamid ahaa madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ahna hogaamiyaha ummadda Soomaaliyeed Professor Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaaraha dalka Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake wasiiro xildhibaano iyo marti sharaf kale kuwaas oo hambaliyo ku aadan 26ka Juun u diray ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ugu horeyntii munaasabadda ayaa waxa ka hadlay wasiirka warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya ahna gudoomiyaha guddiga qabanqaabada toddobaadka xorriyadda Maxamed Cabdi Xayir Maareey asagoo u hambaliyay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dhinaca kale asagoo sheegay muwaadinka Soomaaliyeed hadduu joogo dalka ama dibaddiisa loo siman yahay calanka Soomaaliya waxay ahayd maalin weyn ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto aanay seexan ilaa saacadaha la dhaafay oo munaasabadda u socotay calasaarka la gaaray sidii halka laga sheekeeyay ka nasiib ka nasaar la yiri xornimo la helay ilaa waagu ka badiyay la dabaaldegay maalinta qiyamkaas qaaliga rabitaankaas qaaliga isticlaanta qaaliga ayay xornimada Soomaaliya ku tiri koonfuriyo waqooyi isuulowgina wuxuu keenay in halka la yimaado santan caawa fadhiyo la yimaado calankii la saaro midnimadii la helo walaaltinimo la helo waxaan leeyahay hambaliyo shacabka Soomaaliyeed meel kastuu joogaan oo ku hadlaya magaca guddiga qabanqaabada waa xuskeennii kontaryashanaad waa xornimadeennii kontaryashanaad waa dhalashadeenii kontaryashanaad way jiraan wax ina ka halaabay ama waxyaalo ina ka khaldamay waa jira binaadamkuna oo khaldaan wey waa khaldan laakiin waxaan ugu baaqayaa ka wasiir warfaafin ahaan iyo ka guddoomiyaha guddiga qabanqaaba ahaanba inaynu ummadda Soomaaliyeed ay soo ceshato rabitaankii iyo isjeclaantii iyo walaaltinimadii xilligaa jirta taas kaliya wax lagu noqonay qofka Soomaaliga ay meel kastuu joogo hadduu Itoobiya ku dhashay hadduu Kenya ku dhashay hadduu Hargeysa ku dhashay hadduu Xamar ku dhashay hadduu meel kale ku dhashay waa Soomaali adduun taas baan wada leenahay midda labaad maanta qofka Hargeysa jooga ama Boosaaso jooga ama jooga Muqdisho way wada qabeeyaan qalada way isu xawil haddana waa la kala wada haddana waa la isku diraya wax ma wada diidin baa la leeyahay waxaas wax fikir gumaysi wey fikir qof aan muwaadin ahayn oo Soomaaliyeed fikir qof aan jeclayn Soomaaliya inay guulaysato shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay gacmaha isqabsadaan inay samaystaan dawlad ay wada leeyihiin markaas sharaftooda u soo noqonaysa waqtigu sida la sheegay waa yaryahay sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay ra'iisul wasaaraha dalka Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake asagoo u hambaliyay ummadda Soomaaliyeed 26ka Juun dhinaca kale asagoo u baaqay dhalinyarada Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan horumarinta waddanka Soomaaliya maanta dhalinyarada Soomaaliyeed in runtii jahwaniyo la geliyo ururada nabadgelyada waa ayaan daro oo loo baahan yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ayna hore saarnaan caawinta xubiyada dhalinyarada Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay Afrika oo dhan xal ku keenay iyo qadee maanta in ay mar dambe iyo mar laba ku dhuntaan wadadooda sidii uga saamaxay dadka haysta oo wax dadweynaha qaarkood ee wali ka tarayaan dadka dawladda waxa loo baahan yahay in marka dawladnimadeedii sida loo soo la kayo laga saaro waxaan loo jeediyay dadka haween inay marka ka dabeeyaan marka hadda shaqada dadka ku shidan marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay in marka isku tashaan dawladnimada ciidan dhalinyarada Soomaaliyeed sidoo kale ka shaqeeyaan annaga qowmadahan waxaan naga go'an inaan barbaarino inaan uga xaqno runtii
ugu dambaystii munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ahna hogaamiyaha ummadda soomaaliyeed brofesor xasan sheekh maxamuud asagoona u hambeliyey ummadda soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa tacsi tiiraanyal u diray dadkii u soo halgamay oo u soo dhintay calanka soomaaliya dhinaca kale madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa hambalyo u jeediyey soomaalida degta gobollada waqooyi galbeed ee waddanka soomaaliya caawa inaan halkaan uga tacsiyeeyo dadkii ayagoo xorriyaddii raadinayay oo u dagaalamayay oo gog baa nahay dhahaya u geeriyooday soomaali meel kastoo ay joogaan waan u tacsiyeynaha ilaahay u naxariisto waxay u dhinteen muxuu ahay qadiyad la garan karo oo qadiyad diini waaye aan dhihi karo isticmaal aan nagu dad ahayn nagu diin ahayn nagu maxaan ku rahay dhaqan aan ahayn aan xukunkiisa ka hoos baxno oo mid aan annagu leenahay aan la nimaado dadkii intaa codkooda inta kor u qaaday aanan gabannin ee intaa u geeriyooday sabir iman allaa siiyo waxay ku dhinteen waxay ahayd waa jihaadka rasmiga la tilmaami karay ahayd waxaan sidoo kale rabaa ayadana inaan u tacsiyeeyo xorriyaddaas aan helnay iyo dowladnimadaas aan gaarnay iyo nidaamkii aan dhisannay haddii dhibaata ay ka timiday oo dadka qaarkii ay dhibaata ka soo gaartay joogfad iyo dhibaato iyo wax ay dhaceen sidaa daraaddeed ay dad soomaaliyeed haddane ku dhinteen ayagoo diidan dhirka dowladnimada muxuu ahay waxa qaldoomaya iyo waxa qalloocan diidan ee leh maya waxaana waa diiday waa qalloocan yihiin ma doonayno ayagoo leh haddana geeriyooday intaa u dhintay waxaan leenahay samar iyo iimaan ayagana sidoo kale allah naga siiyo waxaan si gaara marka intaas tacsida kadib aan rabaa inaan ugu hambalyeeyo guud ahaan dadka soomaaliyeed meel kastoo joogaan gaar ahaan dadweynaha soomaaliyeed ee sharafta badan ee ku nool gobollada waqooyiga soomaaliya inta halganka gobinabadoonka xorriyadoonka ah maxaan ku idhahda madax bannaani doonka ah inta u istaagay maxaan ku idhahday u halgamay ku geeriyooday ku dhibaatooday markii ay calankiina soo dhiciyeen oo ay keeneen inta soo qaaday xaggee soomaaliya laga jirtaa inta yidhi haddana keenay waxaan leeyahay qiimi gaara iyo sharaf gaara iyo haybad gaara ayay leeyihiin waxaan leeyahay waad ku mahadsan tihiin waana mudantihiin intaas kadib bannaanka ayaa loo soo baxay oo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya oo dhinacyadiisa ay taagan yihiin mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya saraakiisha ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa taagay calanka buluugga ah ee ummadda soomaaliyeed calankaanu sugaynayeen saankiisaynow seerma weydo hilaacdayow sagal maanta daruurado sigadiinaga maydhayow saqdhaxaanu ahayne kii soo saaray cadceedow samada kii wekaaye xidiga mid la siiyayow saaxirkii kala guuraye sarreeyo ma nusqaamow aan siduu yahay eegno ka nasiibkana saare munaasabaddan xalay lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya oo lagu dabaaldegahayay 26 juun ayaa ka duwaneed munaasabadii hore uga dhici jiray waddanka soomaaliya